السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباهية حكمدي ستوب كسو دواada xigmadii taxanaano ahaa iyo qaybtii toddobaad. waxaa waajib ah in koritaanka garaadka iyo fikirka aadamuhu uu la bilowdo dhalashadiisa isla markaana aanu joogsan ilaa uu geeriyoodo. taas macnaheedu waa inaadan waxbarashada joojin inta aad nooshahay. samafalka waalidku waa qiso iyo taariikh aad qorayso ayna kaa warin doonaan ubadkaaga. isku day inaad u qorto si wanaagsan si loo wariyo si wacan. ula dhaqan waalidka si wanaagsan. waxaad jiri doontaa xilli aad tahay waalid oo u baahan tahay samafal. nimada looma abuuro in markaas dhibka aad ku jirto looga baxo ee waxaa loo abuuraa si ay u noolaato weligeed. xornimada ma ahan gumayste ku gumaystay oo keliya ee gumaystaha la doonayo in laga xoroobo ayaa ah wax walba oo ummadda jiritaankeeda dabargoyn ku ah. haddii aad shayga si sahlan u sharixi weyso ama u qeexi weyso macnaheedu waa inaadan shaygaas si kugu filan u fahamsanayn. qof kasta oo akhriskiisu bato caqligiisana aan isticmaalin waxa uu bartaa caado xumo iyo caajis kaga dhaca fikirka. waalidu waa inaad shay keliya ku celceliso marar badan adiga oo rajaynaya in marka aad ku celiso ay ka soo bixi doonto natiijo ka duwan tii hore. guulaystuhu waa riyoode aan quusan, sidaa darteed ha ka quusan waxa aad dhab u rabto. tartanku waa wax wanaagsan, wuxuu nagu qasbaa naguna riixaa inaan samayno waxna qabanno intii kalaankeenna ah. marnaba ha u ooyin qof qalbigaaga dhaawacay, keliya u dhoolla cadday kuna dheh waad ku mahadsan tahay sidaad fursadda iigu siisay inaan raadiyo qofkii ii qalmay. fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe calaamadda guduudka subscribe saar, dambalelkana furo sida u noqoto daawadaha ugu horeeya. mahadsanidin.